maansadan eeba jaawir ah oo soo baxday 4tii bishii 7aad 2005 waxa ay la hadlaysaa Soomaalidan la waayay meel loogu hagaago oo wiil yar oo 10 jir intuu mid kale xabad ku dhifto beela dhami dartiisu kala qaxayaan oo habeenkii godadka waraabaha iyo bahalaha ku hooyanayaan maalintiina qoryaha degta ku wada sidayaan iyaga oo isdhex jooga ilaa meel ay kala aadan ma lahan oo aabba iyo hooyo isku dhalay marka suurtagal ma ahan qoom dhan oo malaayiin ah ee ilmo yar oo 10 jir iska qaban waay inay wax ka sii weyn qabtaan taas ayaana keentay in shir kasta ay isugu yimaadaan ee isku ooyaan oo isku bururaan been badana oo aakhirkan natiijo la'aan noqdo ilaa dad aqligooda 10 jir gaari waayay ahaayeen waana la laayahay oo laga quusto ilaa hadda sheekh iyo shaab mid yiraahda war halkan cunug ee habaar qabaha ee kala qaxinaya aan isaga kaligiis qaxino maalin walba waxay ku qaylinayaan xageeban xalka helnaa oo ka sii daran hadii musiibo kasta ku dhacdo maalinta Ilaahay ka badbaadiyo halkoodii ay ka bilaabayaan dulmigii iyo qabiilkii iyo qurunkii oo dhan ilaan qurun oo dhan qabiil hoos yimaaday waxa waliba ka sii daran in dambiga iyagu leeyihiin ay iska dhaadhiciyaan in dariskooda iyo gaaladu iyo waxaas leeyihiin marka cid iyadii isnabad gelin weysi darisna ma nabad gelinayso oo inuu ka walwal qaba xitaa wax gar ah hadaba waxay maansadani Soomaalidu u sheegaysaa in hadii ay nolol adduunyo rabaan ay laba mid un soo galaan in ay muslimiin run ah oo aan sheegasho been ahayn noqdaan ku dhaqmaan adduunyo aakhir Ilaahay baa raaxa u ballan qaaday iyo hadii aanay aakhiradan ka lahayn cadaab Allah inuu jirana aaminsaneen islaamka toos isaga diidan marka adduunyada waa la siinayaa nolol iska roon laakiin aan gaareen nolosha muslimka dhabta ah aakhirana cadaab xun ayaa la geenayay hadii si ay labadaas meelood diidaan yaani ka qaylin adduun iyo aakhiraba nolol tan ugu dullisan oo aan wax u dhow la arag tan gaalka nadiifka iyo islaamka nadiifka toona ayaa u diyaar tii horena waaba tan aad aragtid hadda marka maasoo intaa way ka hadlaysaa iyo hadii jeer midka xun ay daba ordayaan oo soo godna ku shubaya haddana ay u ducaynayaan markuu god ku shubaba Soomaaliyadinkeed jartiyo jabayahay hedhe jidhadaad maraysiyo haddaad joogto gurigaaga xal xagaan u jirinaa ayaad jibka dhigatane iga hoo jawaabtaada rabtiyo waxa ku jeemeeyay jamacu quraaniyo markaan jacala soo egay saddex buu ku soo jaray jaliil jinka hadalkiisa jidka hore islaamka un ku joog hana ka jeesjeesan jareeradii adduun aakhirana reer jannaad noqone jid labaad ku waajib ka diid gaalnimana jido nolol jaban adduun aakhirana guri jaxiimaade lafta jecli ludaan jecelaha jiilku soo jabay jidadkaas hadaad jiidhideed labada jeesdido jisadaada baajaro wuxuu ku jangooyey dunidood jaraqlaysood gaajana ku joogto oo cadowgu jiirtaada jaro kuna jeesjeeso beritana jahiimadii salkeed lagu jiidayo Soomaaliya haddaan jeedadiyo jira ku weydiiyo saddexdaas jideen soo mareen sheegay jihadooda idinkoo jaleeco si wacan fiiro ugu jedshay jidkaad ku joogtaan dadoo sheegay jagadiisa gaalkaba jaliil baa lahoo untay jeer hore jirdili hadduu jeel u rabo jeeba uma weyne waxa uu joogaa inaan jawrka loo rabine haddii aad ka jibataa la yidhi jaahiliyahu diinta iska jooga adduunyada intaan siibi jiridaada dabadeed adoo jaafiyo welina juuqsaya oo dunida jaafayo sida daba jooga anigoo jafaala intaan kaga jaro ruuxa akhiran jilbaha ku dhiga jara dhimanayso waxa nasiib xuma jabo jaahu gubanana jirjirole sidaadoo kale labadii jandugay
ee weliyadoo jooga oon dooni ka janqaadin inuu gaalku jaanjaansho jiibta kugu qaado aakhirana jiifka dhigtiyo jodarigiisa sawbaas jidkii ugu xumaa adi majaasaysan balaan rogo wadada jiiftadiyo mansaday jarane cawl iyo jugley iyo ugaar nooc walbo jigiina jigjigiyo hadday jiir qabniyo jararta daaqayso sida ayga daba jooga ee jaabcas lagu goobo hadba jiha siduu ugu eryaa jeenigaas qabay isagaaba loo jari cadiyo sararta jiifkeedii oo inuu sii jiro rabaa jallihii waday idinku samidaan jiirnaxayn jaraya ruuxina siduu jannadii idin geynaya aada ugu jidbootaane qoomkii jabaayuu marnaba jeedin karin ruuxe qabaliya ninkii jeenanshaa cadow ku jeesjeesi wax jufeeyey maaqaan dhegtii jawharta ahayde waaniyo markaan jeedinaa diinta jimiceeda inaydnaan u joogsayninoo jalaq u siinaynin qalbigay ijiifto middaa jeerna sugi mayne balse ruux jediin muuqda iyo eeba jaawiraba midna lagama jeestaa la yidhi lagu dayjidjiide sidii waxaan maslaxo kuugu jirin shaako iga jiibsha caasimada ujaad walboo noolay jagafleeyo jiri iyo cirfiid jiim cabiyo jaahil tumanaya ninka yidhi jiglaha soo rido jiibta ku asqeeya siduu rabay jamiis muu hareen jeex kulay tahay xag allaad ka joogtiin dadow oo idin jiray jaliil baan idinku dhaarshay iyo jaamacas dhigane intaad cudurka jaane qabiil jaabad kusoo tuurto caynsada intaa jiis hartiyo jiilka soo koraya